بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa xafiiska hirda ee magaalada Amsterdam. Maanta waxaan isugu nimid halkan inaanu sameeyno qorituurka ciyaaraha hirda AFT 2013 oo ah sanadkii 10aad ee la qabanayo ciyaarahan isla markaana sanadkan si gaar ah loogu dabaaldegayo xuska 10 sano guurada ay ka soo wareegatay xilligii la bilaabay ciyaaraha hirda AFT. sanadkani waxaa nasiib u yeeshay ama soo buuxiyay shuruudihii loogu talagalay ka qaybgalka ciyaaraha hirda AFT 16 kooxood oo ka dhisan gudaha wadanka Netherlands iyo 8 kooxood oo ka dhisan wadamada ka baxsan wadanka Netherlands ee kamida qaaradda Yurub. maanta runtii inkastoo aanu jecleen inay ka soo wada qaybgalaan dhammaan kooxaha ka qaybgalaya ciyaaraha hirda AFT 2014 haddana sababo la xiriira kooxaha oo ka imaanaya dibadaha iyo magaalooyin dhaadheer ee ka baxsan magaaladan Amsterdam codsina ka yimid in loo sameeyo qorituurka ciyaaraha hirda AFT 2014 ayaa kaliftay inaanu barnaamijkani hawada idin soo marsiino idinkoo si toos ah u daawan kara. iminkana waxaanu gudagalaynaa qorituurka ciyaaraha hirda AFT 2014. halkan waxaa noogu soo idlaaday qorituurkii ay sameynayeen dhalinyaradii halkan joogtay kooxahana waxay isugu aadeen sida tan. groupka waxaa galay kooxda Hoorn ee ka dhisan wadanka Netherlands iyo kooxda Westagder ee ka dhisan wadanka Norway, Copenhagen Olympic ee ka dhisan wadanka Denmark, Fenerbahce ee ka dhisan wadanka Netherlands, Arnhem oo ka dhisan wadanka Netherlands, Liskendam oo ka dhisan wadanka Netherlands. sidoo kale groupka B iyaguna waxaa galay kooxda Husby ee ka dhisan wadanka Sweden, Antwerpen ee ka dhisan wadanka Belgium, Venendal oo ka dhisan wadanka Netherlands, Den Haag oo ka dhisan wadanka Netherlands, Vegeningen oo ka dhisan wadanka Netherlands iyo Wassenaar oo ka dhisan wadanka Netherlands. sidoo kale groupka C waxaa wada galay kooxaha Reewijk ee ka dhisan wadanka Netherlands, Helsinki oo ka dhisan wadanka Finland, New Lekerland oo ka dhisan wadanka Netherlands, Amsterdam oo ah wadanka Netherlands, Zurich oo ah wadanka Switzerland, Dambush oo ah wadanka Netherlands. groupka D waxaa isku arki doona kooxda Kristiansand ee ka dhisan wadanka Netherlands aan dhahay wadanka Norway, kooxda Alkmaar oo ka dhisan wadanka Netherlands, Stockholm oo ka dhisan wadanka Sweden, Rotterdam oo ka dhisan wadanka Netherlands, Nieuwegein oo ka dhisan wadanka Netherlands, Eindhoven oo ka dhisan wadanka Netherlands. sidoo kale waxaa jiri doona sida caadadu ahayd 3 kooxood oo kubadda kolayga kuwaas oo ka kala imaan doona wadamada UK, Germany, Finland iyo Norway kuwaas oo ah gabdhaha kubadda kolayga ama basketballka. sanadkan waxaa loo dabaaldegayaa 10 sano guurada ka soo wareegatay xilligii la bilaabay ciyaaraha hirda AFT iyadoona ay ka soo qayb gali doonaan madax kala gedisan, fanaaniin iyo dad kale oo bulshada magac iyo sumcad ku dhaxleh. waxaan filayaa inaad dhamaantiina u soo diyaar garoobi doontaan ka soo qayb galka ciyaaraha hirda AFT 2013. balanteenu waa 20 iyo xafladda weyn ee sanadkan loogu dabaaldegayo 10 sano guurada ciyaaraha hirda AFT.